gabaygan waxa magaciisa la yiraahdaa Qudh Muslin waxa uu soo baxay 2 November sanadkii 2008 saddex cisho ka hor marka uu gabaygani curtay waxa magaalada Hargeysa ka dhacay qaraxyada la beegsaday madaxtooyada xarunta UNDP-da iyo xafiiska Itoobiya ku leeyahay Somaliland marka gabaygani waxa uu ka hadlayaa qiimaha ay leedahay nafta muslimka ahi sida uu Ilaahay u xurmeeyay dhiigeeda iyo sida ay xaaraanta u tahay in la dilo qof muslim ah waxa uu Ilaahay ka baryaa inuu hadeeyo ummadda lunsan guud ahaan khasaarahaas dhacay 29 Oktoobar 2008 ayuu ku saabsan yahay wuxuu yiri qorraxdii timaadaba falbu qalinku gooyaaye qadar eebe lama seegi karo qoonduhu dhigaye abshirow qasaaray rideen qaraxyadii jaane qurihii la gooye rawaxay dhiiqii lagu hoobtay qulubkay abuureen dartood waan qadhaysnahaye qosolkiina waan daayay aamin qaaladii timiye islaamnimo quruun bay ahayd diinta qoorahane quraan iyo kitaab waan naqaan qowl rasuul yidhiye musxafkeenu qaybiye ma laha qurubyo hoosaade furqaan weeye qula ol mar laba qool wareeg geline laba qaarna maahay waqii waa halkaa qodobe diinteenna kii qaatay ee aan mar qubahaynin ee aan qisaas lagula kaco xeerka lagu qeexin ama aan intuu qoys alkumayn qooqu dhagaraynin rabbi qiimo weyn buu dul suray qaayo sharafeede xurmadu qaharsiiyey baan cidi qiyaasteene waa qaali dhiiggiisu oo qoonta muu geyne qodax looma aaseen kolnaba lagu qoriyeeyaaye qaybaha nisaa iyo markaan dheexday quruxdooda qisadii wadaaciya xajkii nebigu qayb qaatay qaraarkii udgoonaha kolkan qaarinimo dhuuxay qoraalkoodii aan dahrogee fura qulubteenna iyadoon qofkii lagu dirqiin qorina loo dhiibin nafda goysa ruux ee baqiray qaatay faralkiina qormadiisu waa naarta iyo qool dabluu gole ee qaadir bow cadhoonoo jannada wuu ka qadayaaye laxnad baa qudhiisana kortiyo qiimo beel darane haddii ay qur-aanka iyo sunnuhu qowlkan dhigayaanba qiilkee talow loo cuskaday qaraxyadii hoogga mise qaacidan dhaafay dhigan qaradna waan jeexay ishalaaggu waa ficil qarriban qudhuna weeyaane qudhgooyada naftaadaan ahayn shay qaniimo lehe qumanaha rasuulka nahriyey qabashadiisiiye waa dariiqa loo qaada naar qoomamayn badane qoortii isdooxdiyo midii qalax ka soo boodda iyo kii dhibsanoo qooshda ee qabarka loo hooyo qiyaamaha fardowsiya nimcada way qabow ma jaaraane qaxarka iyo rafaadkay darsaan qob qalaan qale eh qaabku naftiisa u dilaa qalabka loo siine haddii ay qur-aanka iyo sunnuhu qowlkan dhigayaanba qiilkee talow loo cuskaday qaraxyadii hoogga mise qaacidaan dhaafay dhigan qaradna waan jeexay inta qaab jihaad loo falaa qeexan oo dhigane waa in gaalka lagu qaabilo lagu qafaashaaye waa in diinta cadowgii qodxayn lagu qabaanaaye waa in qowlka tawxiidku hiro quruxna yeeshaaye qalalaase aad daartid iyo hawl qas lagu hoobto qalashada islaamkaan lahayn qayr la dheefsada ee qiyaamaha kolkii uu ilaah qoomka kula siiyo qof hoggaansan kii toogtay buu qaadir gubayaaye haddii ay qur-aanka iyo sunnuhu qowlkan dhigayaanba qiilkee talow loo coskaday qaraxyadii hoogga mise qaacidaan dhaafay dhigan qaradna waan jeexay qasaaruhu dhammaanteenba wuu gaadhay qoom yahaye waa qaxar na saameeyey oo in qoysna ku akayne waa qaranka nabar wiiqay oo aan la qarinayne waa qamuunyo ficil beerayo qoomo muu ridaye waa qadaf garaadkiiyo nacaan manqumaatiye qarqadhiyo lur weeyaan hirdiyey qaaradoo idile haddaad qaadataan wada jirkood kala qubnaan diito inuu nacabku qoortaas ka jabi qiruhu noo sheegaye qacdii horena waa waaye arag mawlaheen qoree ummad yahay dadkii qodi godkii idin qudhgoynaya ee qayrka aan haysaniyo qoomi nabadeenna quwad xooggan baa caawbidiyo qaanso wadareede qadhaadh iyo dhunkaarsiiya daran wou qalmahayaane qaafkayga maansiya haddaan gabaygii soo qaydo allahayow islaamkii qaldamo qayrka ku hanuuni
الله يو قرآن كي شرعي قاب سن نقول دافر الله يو قلع روح وضع قبل شركي سودان الله يو قف كان حما كل من قري دنوبتيس الله يو قف كان حما كل من قري دنوبتيس آمين آمين